السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. walaalahayow waxaan rabaa inaan hal su-aal ka jawaabno aniga iyo idinkaba aan naftayna weydiino. su-aashaasi waxay tahay, maxay tahay asbaabta qalbigu uu ku jirado? waxaan ka hadalnay mar hore muuqaalka ee qalbi jiran maxaa lagu gartaa. hadda waxaan ka hadlaynaa asbaabta keenta waa maxay inuu jirado. asbaab badan baa keenta. waxaa ka mid a waxyaabaha qalbiga inuu jirada keena al-icraad can dikri illaahi subxaanahu wa tacaala, in ilaahay dikrigiisa uu qofku ka jeedsado. waman acrada can dikrii fa ina lahu maciishatan dankan wanaxshuruhu yowma alqiyaamati acmaa buu rabbi leeyahy subxaanahu wa tacaala. qofkii dikriga ilaahay ka jeedsada nolol adag oo aada u dhib badan buu ku noolaanayaa. waa marka labaadee asbaabta waxaa ka mid a waxyaabaha keena qofka qalbigiisu inuu jirado in faraa-ida ilaahay iyo waxyaabihii waajibkaa uu ruuxu ku xadgudbo, sida salaadii iyo soonkii iyo wixii lamidka ahaa. fa bimaa naqdihim miithaaqahum lacannaahum wajacalnaa quluubahum qaasiya ayuu rabbi leeyahy subxaanahu wa tacaala. yacnii sababta ballamihii ilaahay ay la galeen oy ka baxeen ayaanu rabbi wuxuu ku dambaysiiyey qalbigoodii mid qallalan ayuu noqday. waxaa ka mid a asbaabta xaaraanta oo la cuno qalbiga ayay qalalisaa. waa sabab weyn weeye. rasuulku markuu ka waramayey alladii yacni qofkii safrayay yutiilu safara ashcatha aqbara yamuddu yadayhi ila asamaa yaquulu yaa rabbi wamadcamuhu xaraam wamashrabuhu xaraam waqudiya bilxaraam fa ana yustajaabu lahu. yacni qof wuxuu quudanayo iyo wuxuu xiranayo iyo wixii lagu quudiyay iyo wixii lagu koriyaba uu yahay xaaraan, sidee loo ajiibayaa oo ilaahay baryadiisa u aqbalayaa? marka taasina waa arrin kaleoo qalbiga iyaduna qalalaysa. waxaa ka mid a macaasida iyo dunuubta oo ku badata ruuxa qalbiga ayaa qalala. allah wakiilaha subxaanah kalaa barwaana calaa quluubihim maa kaanuu yagsibuun. mufasiriintu raanka aayaddu sheegtay waxay ku fasireen inuu yahay addanbu cala adanbi, waa dembi kale la dul saaray ilaa uu marka dambe qalbiga dhanba u madoobaado. waxaa ka mid a asbaabta almujaahara bilmacaasi, in macaasida lala jahro oo dadka aan la iska qarinina banaanka lasoo dhigto. rasuulku waa kiilaha sala allahu alay wasalam kullu ummatii mucaafan ila almujaahiriin. ummadayda oo dhan waa la cafinaa dadka mujaahiriinta. ama mujaahiriinta waa la weydiiyo, asxaabtii baa warsaday rasuulka waa kuwee? wuxuu yidhi waa qof habeenkii dembi samaynayo ilaahay intuu asturay isagu maalintii ka sheekaynayo oo dadka u sheegaya. marka isagana waa sabab kaleoo qalbiga. walidaalika cabdullaahi bnu lmubaarak ayaa wuxuu lahaa ra'aytu dunuuba tumiitu lquluuba waqad yuurisu dulla idmaanuha watarku dunuubi xayaatu lquluubi wakhayrun linafsika cisyaanuha. yacni dembiga daa'imidiisu waxay ka dhigtaa qalbiga mid mugdi ah. ra-aytu dunuuba tumiitu lquluub, way dishaa. waqad yuurisu dulla idmaanuha, haddii la joogteeyo dembigana qalbigu waa dulloobaa. marka sidaasuu yidhi. waxaa ka mid a ayuha alaxiba asbaabta iyaduna keentaa in qalbigu uu maaragtay qofkii uu qalbigiisu uu qalalo. waxaa ka mid a waxyaabaha keeno oo kale jahliga, in qofku uu jaahil weliba raalli ku noqdana jahliga. ilaahi subxaana wa tacaala markuu ka hadlayay inamaa yakhsha allaha min cibaadihi alculamaa, ilaahi subxaana wa tacaala waxaa uun si dhaba uga baqi kara dadka culimada ah. asbaabta marka jaahilku qalbigiisu waa qalalan yahay. asbaabta waxaa ka mid a iyaduna waxyaabaha keena inuu qalbigu uu qalilo itibaacu lhawa, inuu qofku hawadiisa iska raacay iyo naftiisu waxay jeceshahay. falamaa zaaquu azaaqa allahu quluubahum, markii ilaahay subxana wa tacaala zayqa uu ku sameeyey, yani xaqa marka iyagu ka iisheenoo hawadooda ay raaceen buu qalbigoodina ilaahay subxaana wa tacaala xaqii garamari. waxaa ka mid a ayuha alaxiba waxyaabaha qalbiga qalaliyaa mubaaxaadka, atawasuc fi lmubaaxaat, waxyaabaha iskaba bannaan laakiin haddii lagu xadgudbo qalbigay qallajiyaan, sida akliga, cuntada badan, hurdada badan, qosolka badan. umuurtaas iyaguna waxay qalaliyaan qalbiga.
dadkii salafka dad ka mid ahaa nin la odhan jiray Bishr ibn al-Harith ayaa wuxuu yiri laba khislo laba arrimood labaduba qalbiga ayay qalajiyaan waxaana ka mid ah kathratul kalaami wa kathratul akli yani cuntada badan iyo hadalka badan labaduba waxay qalajiyaan iyaguna qalbiga ayay maartay warka waxa ka mid ah waxyaabaha qalbiga ayuha al-hibba qalajiya kathratul dhihki oo ahadiith isaguna leh يعني رسولك كلا دردارمي ددكو يدها بدينين قصلكا قلبك أيو قلجياي marka Ilaahay subhanahu wa ta'ala ayaa waxaan naftayda iyo tiinaba uga baryaya alla qalbigeena inuu qooyo oo uu noo daweeyo waxaan ka hadli doonaa insha Allah ta'ala bal waxyaabaha daweeya qalbiga jazakumullahu khayr wa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh